بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ليال مانتا وحال آسد دونا الله نحريستي ولالكين سمتر سهل oo maalinta talaadada la soo dhaafay ku geeriyooday goobta shaqadiisa. Allahu naxariistay. Hadda waxaan joognaa masaajidka Ar-Rashiid. Salaada janaasada ayaa lagu tukan doonaa. Duhur marka la tukado kadib ayaa janaasada lagu tukan doonaa. Mardhow ayaa lagu tukan doonaa janaasada. Qaybtan janaasada la wadaagaya kadib waxaan u baxi doonaa qubuuraha oo runtii عبار كجرو مقالة هذه صدق دقيقة عمل الله سيسعون دونا إن شاء الله تعالى. مركان جدك كرة أيام اسكسوا الله ونين هذا صلاة الجنازة أيام لقلا أيها اللو دعي. For the closest relative of the deceased, inshallah. As well, we're going to have, inshallah, another janazah at 3:30, but it will be in the cemetery. 3:30 sharp, we'll play janazah, inshallah. We'll pray in Edmonton Islamic Cemetery. Ata al-Ismaili, our brother Ata al-Ismaili, the janazah will be in there because it's a COVID-related janazah. So that way, inshallah, my brothers, 3:30 will not come to the masjid. Come straight, inshallah, to the janazah in the cemetery while we're taking all precautionary measures, inshallah. After the sunnah, we'll pray the janazah. So the front line, inshallah, will be for the direct family relatives of the deceased. If the deceased owns any money to anyone, please, inshallah. If they owe any rights or any money, please, inshallah, a person should approach the direct family members, inshallah, in the front line before the burial. So you can clear things out with them, inshallah. Salatul Janazah is for takbirat, after the first takbirat, recitation of Surah Al-Fatiha. And the second takbirat, the last part of the recitation, starting Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. And with the last takbirah, you make dua for yourself and for the woman. Social distance. I'll be praying right here, so you can social distance with this one right there, inshallah, as well. Social distance, my dear brothers. Do not cross this one. Allah.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته. kani waa gaariga lagu qaadi doono meedka hadduu ilaahay yiraahdo. allah u naxariistay walaalkeen Samatar Sahal. gaarigu waa kana laga yaabaa dadka qaarkood inay weligood arkin gaariga meedka lagu qaado gudihiisa ama suu eg yahay. gaarigu saan u eg yahay gudihiisa. إنا لله وإن إليه راجعون. الله naxariisto meedka waa la soo saaray. gaariga haddaan idin tusi ayaa la saari doonaa kadib insha allahu tacaala waan sii baxi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. allahu naxariisto runtii halkan waxaa imaaday eheladiisa iyo qaraabadiisa dadkii qaraabo yihiin. runtii aad iyo aad calooshana rogay. geeridu way kala xanuun badan tahay. qofka subaxdii xalay kula seexday saakana nabad ku baxay oo shaqo ka tagay oo habeenkii kalena maaragtay meedkiisa lagu keenay waa xanuunkeeda ayay leedahay. waa dareemi kartiin qofka markuu xanuunsado aad rogrogato oo aad maaragtay dhakhtar geysato wax walba aad awoodi karto u sameyso kadib tiisa imaado uu kaa geeriyoodo waad ka samareysaa. runtii geeridan oo kale waa geeri aad iyo aad u xanuun badan. xanuunkooda qoyskaasi ama eheladiisa waan dareemi karaa. ha loo duceeyo ayaga laftirkooda inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo insha allah. hadda waxaanu sii soconnaa hadduu ilaahay yiraahdo qubuuraha. saan hore idiin sheegay qubuuraha waxay ka jiraan magaalada Edmonton ama masaajidka Rashiid 30 daqiiqo. maasha allah maanta dad badan ayaa ka qayb qaatay janaasadiisa. ilaahay ha u aqbalo ducooyinka halkaas looga duceeyey. ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, kitaabkiisa gacanta midig allah ka siiyo, dambigiisa allah u dhaafo, qabrigiisana allah u nuuriyo. hadda waxaanu sii soconnaa ama u sii raacaynaa gurigiisa xaqa ah. kolley asaga camalkiisa ayaa qabriga u raaci doona. annaga waan ka soo laaban doonaa balse insha allah waa waajibna saaran. waa waajib qof kasta oo muslina saaran walaalkiisa markuu geeriyoodo oo naga tago inaan sagootino gurigiisa xaqa aan geenno aan u duceyno insha allahu tacaala. gaarigan iga horeeyo gaariga kasii horeeya ayuu meedku ku jira. hal gaari ayaa naga dhexeeyo insha allahu tacaala. markuu gaariga jiiro galayo waad arki doontiin. alxamdulilaahi walaalayaal qubuuraha waan gaaray. jiiradan ayaan hadda ka galeynaa. haddii aad ku cusub tahay Edmonton ama aad weli qubuuraha imaanin jidkaas 97 ayaa loo soo qaataa north kadibna tuulada markaa gashin nalka ugu horeeyo ayaa right loo galayaa inkastoo aanan fiirinin magaca jidka. kadib toos aad u soconaysaa waxaad right u galaysaa haddana 134 wax yar markaa socoto right u galay haddana qubuuraha halkaas ku yaaliin. saad u jeedin dad badan ayaa soo galayo. waxaan oo gaari oo soo galayo oo dhan asagay ka daba socdaan. waxaa jira qof kale oo asagana maanta geeriyooday. allahu naxariistee kaasi wuxuu u geeriyooday xanuunka coronavirus. allahu naxariisto asagana. soomaali ma ahan. waxaan aaminsanahay carabaha meelahaas inuu ka yimid
hasi ahaatee Soomaali ma ahan Allah u naxariisto asagana janaasadiisa waxaa lagu tukan doonaa qubuuraha maadaama xanuunka u dhintay masaajidka lama ogolo in la keeno qubuurahana marka lagu tukanayo taxadar weyn ayaa la sameyn doonaa dadka inta loogu talagalay ama inta haysato qalabka la iskaga difaaco xanuunka inta qabto ayaa ku tukan doonto kaasina halkan ayaa lagu aasi doonaa Allah u naxariisto labadood maanta hal maalin ayaa goobta lagu aasi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo daawadayaal waxaan sii aadaynaa meesha qubuuraha hadduu Ilaahay yiraahdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa u jeedin walaalkeen waa saacadihiisa ugu dambeeyay oo aan arki doono meedkiisa saacadda waxa ka bilaawday gurigiisa xaqa ayuu u hoyday Ilaahay camalkiisa ha uga dhigo camal wanaagsan Ilaahay dambigiisa ha u dhaafo Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo dhammaanteen halkan ayaa noo dambeeso halkan ayaa na sugayso Ilaahay ha noo kala fogeeyo geerida asagana ha u naxariisto ehelada iyo qaraabadiisana samir iyo iimaan Allah ka siiyo waxaa maanta masaajid ka imaaday mas'uuliyiinta kambaniga uu shaqeyn jiray xilliguu geeriyooday ayaa masaajid ka imaaday haddana way soo raaceen waa kuwaas halkaas taagan ilaa 4 qof 3 qof ilaa 4 qof ay ahaayeen waa mas'uuliyiinta energy company oo uu shaqeynayo halkan qubuurahana way imaadeen kolley mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran ayagana culeys weyn ayaa saaran ma sahlano
aaskiisa dad aad iyo aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay janaasadana sidoo kale runtii intaan Edmonton jooga ama aan ka qayb qaatay aaska qof Soomaali ama Muslim ah ku dhinto magaaladan Edmonton weligay ma arkin dad intan la eg oo runtii hal mar isku yimaaday oo iyadoo qaboob tahay oo maaragtay xilligan coronavirus laga cabsanayo xaaladdu adag tahay runtii dad intaas la eg oo isku yimaaday weligay ma arkin xataa xilliyada caadiga ah dad intaas la eg maanan arag taasi marka waxay ku tusaysaa wiilkan inuu yahay shakhsi aad iyo aad u wanaagsan oo dadka jecel yihiin oo xalaal quuto ah oo xooggiisa maalo oo reerkiisa iyo qoyskiisa iyo ilmihiisa xalaal quudiyo inuu yahay ayaa maaragtay halkan ka muuqato dhalinyaro badan oo aan la hadlay ayaa waxay ii sheegeen magaaladan Edmonton markay imaanayeen qofka ugu horeeyay oo magaaladan ku soo dhaweeyay asaga inuu yahay runtii dardaarankiisana mar walba dhalinyaro cusub markay magaaladan imaadaan wuxuu ula dardaarmi jiray inay wax bartaan waxbarashada xooga saaraan waxbarta ayuu ku oran jiray ama kula dardaarmi jiray runtii dhalinyaradaasi dhammaantood sidaas ayay ii sheegeen waa shakhsi aad iyo aad u wanaagsan wuxuu naftiisa la jecel yahay la jecel walaalkiisa kale sidoo kale oday aan shalay la kulmay oo si fiican u yaqaano ayaa wuxuu iga sheekeeyay inuu yahay shakhsi aad iyo aad u wanaagsan runtii markay wax dhacaan xagga dalka Soomaaliya ha ahaato wadankan aan joogno ha ahaato haddii ay qof Soomaali ah ama qof Muslim ah wax ku dhacaan dhaqaalaha la aruurinayo ama qaaraanka la aruurinayo wuxuu ahaan jiray qofka koowaad oo bixiyo bixitaanka kaliya ma ahane waxaa la sheegay murmur ayaa jirta la yiri qaaraan asaga kaligiis bixiyo oo maaragtay runtii qayb weyn ka qaato oo qaybta ugu badan uu bixiyo marka wiilkan waa shakhsi noocaas Allah u naxariisto wuu shaqaystay wanaag badan ayuu sameeyay ilaahayna ha ka aqbalo ilaahay ha uga dhigo wanaagaasi midku maanta ku baxsan doono aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhacdadii xanuunka badneed oo ka dhacday magaalada Edmonton gobolka Alberta dalka Canada talaadadii la soo dhaafay oo bishuna ku beegneed 27 bisha October sanadka 2020 dhacdadaasi oo ku dhacday wiil walaalkeen Samatar Sahal oo ku geeriyooday goobta shaqadiisa aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal fadlan haddaad ku cusubtahay channelka Qays iyo Raxma subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u hesho notification tan iyo kulantideena dambe walaalayaal waa walaalkeen Qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh